Somalilan ayaa ku dhawaaqday inay walaac xooggan ka muujinayso xaaladihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya si gaar ah ku darsiga 2 sano. Maamulka Hargeysa ayaa madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ku eedeeyay inuu xasilooni darro iyo dagaal sokeeye u horseedayo Soomaaliya iyo Geeska Afrikaba. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Xukuumadda Muuse Biixi Cabdi ayaa shacabka Muqdisho waxay ugu baaqday inay ilaashadaan xasiloonidooda iyo nabadgelyadooda. Waxaan u soo jeedinaynaa golaha ammaanka ee qaramada midoobe inay sii wadaan xayiraadda hubka ee Soomaaliya. Waxaan ka dalbanaynaa in beesha caalamku ay sii laba jibaaraan dadaalada ay ku xaqiijinayaan in Soomaaliya waqtigan hubanti la'aan aysan ka dhicin tallaabooyin kale ayay ku dartay. Horaantii isbuucan ayay ahayd markii golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu muddo kordhin 2 sano ah u sameeyay maamulka madaxweyne Farmaajo oo waqtigiisu dhamaaday. Beesha caalamka ayaa si culus uga hortimid muddo kordhintaas, waxaana ay ku baaqeen in dib loogu laabto wadaxaajoodyada isla markaana si degdeg ah xal loo gaaro. Mareykanka, Midowga Yurub iyo Ingiriiska ayaa dhankooda ku goodiyay inay xayiraado la xiriira socdaalka, lacagta iyo tallaabooyin kale ay ka qaadayaan dadka curyaaminaya wadahadaladii socday. Muddaxileedka dastuuriga ah ee Farmaajo ayaa dhacay 8 bishii Febraayo ee sanadkan. Baarlamankana waxa uu waqtigu ka dhamaaday 27 bishii Diseembar ee sanadkii hore.